waxaa suurtagal ah inay ilowdo wiilka ay jeclaatay balse macquul ma ahan inay ilowdo midka xushmeeya fadlan xushmee gabar kasta dhabtii kuma hilmaami doonto midka u keena hadiyado aad u qiimo badan iyo midka markuu la joogo u muujiyo xushmad iyo qadarin ixtiraam gaar ahna siiya kaas ayay jeclaanaysaa waayo dumarka xantii waxay ku jecel yihiin xushmadda iyo wanaagga balse doqonku wuxuu moodaa gaari iyo lacag iyo in casho banaanka laga soo siiyo inay gabadhu jeceshahay kaas inta wixiisa soo cunto ay aakhirkiina waxay ka raacaydaa mid kale oo nafteeda u roon oona u hayo xushmad iyo qadarin run ahaantii maanta waxaan aragnaa in wiilashu ay jeclaadaan gabadha balse ma aragno wiil gabadha xushmeeya dumarku uma baahan xanti iyo baabuur lagu wadwado uma baahna in baararka casho laga soo siiyo in gacanta la qabto oo wadooyinka lala meeraysto ama lagu faano kaliya waxay u baahan tahay mid nafsadeeda raaligelinaya oo u ixtiraama ama u sharfa sidii waalidkeeda oo kale mid u koolkooliya sida ubad uu dhalay oo kale intuu dhabta saaro u heesa ilaa ay ka hurdo inkastoo ay dumarka qaar markay arkaan nin noocaas ah oo xaaskiisa koolkoolinaya ay yiraahdaan waa doqon aniguse waxaan hubaa inuu ninkaasi yahay nin rag ah oo reerkiisa jecel ninka ragga ah waxaa lagu gartaa wax kasta wuxuu ka hormariyaa inuu qanciyo xaaskiisa